بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصحابتي دaawanaysa ay kusoo dhawaada janaalkeena Ciltire Technology. Haddaba maanta waxaan idin wadaa video kale. Videogan wuxuu ku saabsan yahay WhatsApp. Sida aad wada ognahay badankeena intiina badan WhatsApp waa aalad aad loo isticmaalo ka mid ah aaladaha social media. Iskuma sheegayna WhatsApp hoosh uu qabtay, laakiin waxaan sheegi doonaa 8 farsamo oo aad WhatsApp-kaada ku isticmaali kartid, weliba aad ay muhiim u yihiin. Haddaba ku soo dhawow channelkeena. Haddii aad ku cusub tahay channelkan, subscribe notification-ka furo si aadan u seegin muuqaaladeen kale ee xiga. Haddaba ku soo dhawow videogan waa videogaagii. farsamada koowaad ee WhatsApp aad ku isticmaali kartid waxay tahay in aad awood u yeelatid inaad bedeshid wallbars. Waxaa lagala jeedaa background-kan ayaan awood u leeyahay inaad bedelo wallbars. 3 dhibcood ayaa tagayaa, halkay ku qoran tahay wallbar ayaad kusii dooranaysaa. waxaa kuu soo baxayo optionadan solid color. waxay tahay kalaro uu siinayaa si aad kalaradaas u dooratid. intaanoo kalar available ah, marka midka ku qanciyey ayaad dooranaysaa. midkan madow ayaa doortay, sad ayaa leedahay. sida aad aragtid hadda backgroundkii waxaa laga dhigay madow. sidoo kale in aad saaratid sawir aad adiga leedahay, marka waxaad dooranaysaa gallery. sawirka halka kugu jira ayaad kasii tegaysaa, kadib sawirkaas ayaad saaranaysaa. farsamada labaad aan WhatsApp ku isticmaali karo waxay tahay in haddii uu qof fariin ii soo diro, tusaale ahaan fariin baan dirayaa, hadda nambarka kale u dirayaa, assalaamu calaykum ayaan dhahay, waa kan. marka waxaan doonayaa in aan isla fariintan inaan doorto aan ka jawaabo. fariintan ayaa waxaa sameynaya, waa dooranaya, waan ka jawaabaya. waxaad leedahay markaas fariinta ayaad riixaysaa. markaa halaad dooratid waxaa kusoo baxaya dhowr option. laabtan bidix ee geeska markaad dooratid, markaas waxaa awood u leedahay qofkii inaad ugu jawaabtay. isla fariintii ayaad ka jawaabaysaa adigoo soo dooratay. sidoo kale hab labaad ayaa loo sameyn karaa. fariintii lagu soo diray ayaad riixaysaa. markaad riixdid adigoonan meel taaban ayaa waxaad sameynaysaa, adigoo fariintii haayo ayaa gacantaada dhinaca bidix u jiidaysaa. markaas waxaa kusoo baxaya awood u leedahay inaad wax qortid, markaas waad ka jawaabaysaa fariintii. farsamadii saddexaad aan WhatsApp ku isticmaali karo waxay tahay in aan awood u leeyahay in aan statuskeyga maamulo, cidda arki karto iyo cidda kale. waxaad leedahay halkan status ayaa taabanaysaa, kadibna 3 dhibcood ayaa taabanaysaa. waxaad kasii dooranaysaa status privacy. status privacy markaad dooratid waxaa kusoo baxaya 3 option. who can see my status, yaa arki karo waxaa soo dhigay statuska. 3 option ayaa kuu furan. my contacts oo ah number ee kuu seefan ayaa arki karaan waxaa soo dhigtay. sidoo kale optionka labaad oo ah my contacts except, kan waxaa lagu talagalay optionkan in aad dooratid qof aadan rabin inuu arkin statuskaaga. macnaha inta kale ee kuu seefan way arki karaan, laakiin intan kale aad jeega saartid awood uma laha inay arkaan waxyaabaha soo dhig. dhammaantood jeeg waa saari kartaa. haddaad rabtid in hal qof iyo dhowr qofood waad saari kartaa. optionkan saddexaadna waxaa loo isticmaalaa oo keliya aad la doonaysid inaad la wadaagtid. haddii aad doorto 2 qofood, 2daas qofood ayaa awood u leh inay arkaan statuska waxa aan soo dhigo. inta kale ma arki doonaan. steepka labaad ayuu cagsi ku yahay steepkan. steepka labaad wuxuu ahaa inta qof aad dooratid ayaanan arki karin, halka steepkan uu yahay inta qof aad dooratid ayaa arki kara, inta kale awood uma laha. steepka afraad wuxuu noqonayaa inaad farta wax ka bedeshid. tusaale ahaan waxaan dirayaa fariintaas oo ah sida normalka ah fariimaha aan diray. haddii aad u jeedid fartiina waa sida aan ku naqaano oo defaultiga ah, waa iska caadi. haddaba haddii aan rabo farteyda inaan ka dhigo boldi ama awaweyneeyo macnaha iftiinkeeda, waxaan sameynayaa astrig xidig ayaa ka hormarinayaa,
kadibna qoraal ayaa qorayaa. markaa qoraalkii qortid ayaa waxaa leedahay xidigtii ayaa kusoo gabagabeyn. saa u jeedid qoraalkii wuxuu noqday bold. sidoo kale option kale ayaa jiro inaad ka dhigtid fartaada italic hadaa rabtid inaad ka dhigtid calaamadan underscoreka ma ahan meniska, waa kana menis, laakiin underscore ayaad taabanaysaa. kadibna qoraal ayaad qoraysaa, underscorkii ayaad kusoo gabagabeynaysaa. saa u jeedid qoraalkii wuxuu noqonayaa qaab ah italic. optionka saddexaad aad u isticmaali kartid farta wuxuu noqonayaa inaad dhexmarisid xariiqin. markaas waxaad taabanaysaa calaamadan, qoraal ayaad qoraysaa, isla calaamadii ayaad kusoo gabagabeynaysaa. saad u jeedid qoraalkaagii xariiqin ayaa la dhexmariyey. haddana waxaad sameyn kartaa inta qoraalkaaga oo xariiqin leh ayaa boolda ka dhigi kartaa. keliya sidan oo kale samee, astri ka hormari, kadib calaamadan ka dhigayso in qoraalkayga xariiqin u yeesho ka hormari, qoraal qor. sidoo kale calaamadii kusoo gabagabeeyey, haddana astrig ama xidig kusoo gabagabeeyey. waad u jeedaa qoraalkii bold ayaa laga dhigay, haddana calaamad ayaa la dhexmariyey. steepka shanaad wuxuu noqonayaa in aad si personal ah si private ah qof groupka ku jiro aad fariintiisa ugu jiro. tusaale ahaan groupkan shaksigan ayaa waxaa rabaa inaan ka jawaabo fariintiisa, weliba qofkan ayaan dooranayaa fariintan si gooniya uga jawaabaya anigoo groupkii aan ka bixin. waxaad sameynaysaa hadalka aad rabto inaad ka jawaabto ayaad riixaysaa. markaad riixid 3 dhibcood ayaad taabanaysaa, reply privately ayaad ku dhufanaysaa. kadibna qofkii ayaad fariintii uga jawaabaysaa. saad u jeedid qofkii fariintii si private ah oo keligii ayay u noqotay anigoo kasoo doortay. steepka 6aad wuxuu noqonayaa in aad wax ka bedeshid brivacygaaga. si aad ugu bedeshid brivacygaaga waxaad sameynaysaa calaamadan ee 3 dhibcood ee taabanaysaa. kadib waxaad kusii taabanaysaa settings, waxaad kusii dooranaysaa account, waxaad kusii dhifanaysaa privacy. waxaa kuusoo baxayo 3 option. 3dan option ayaa kuusoo baxaysa oo ah last scene, profile photo. optionka koowaad oo ah last scene waxaa weeye yaa awood u leh inuu arko xilliga ugu dambeysay aan whatsapp isticmaalay. waad dooranaysaa, waxaa kuu dooran sida defaultiga caadiga ah everyone oo lagala jeedo qof walba wuxuu arki doonaa xilliga ugu dambeysay whatsapp isticmaashay ayuu arki doonaa. haddii aad optionka labaad dooratid, dadka keliya teleefonkaaga ku seefan oo adig kuu safgaraysan ayaa awood u leh inay arkaan. halka optionka saddexaad oo ah nobody oo lagala jeedo qofnimo arki doono, kan kuu seefan iyo kan kaleba awood uma laha inay arkaan. optionka labaad uu privacyga ah waxaa weeye profile photo ah yaa awood u leh inuu arko sawirka whatsappkaygii saaran. qof walbo sida defaultiga everyone ayaa saaran, qof walbo inuu arki karo aboutkani whatsappkaaga wax kugu qoran description ahaan yaa arki karo. isla sidii oo kale intaan qof ayaa awood u leh inay steepka 7aad wuxuu yahay fariimaha laguu soo diray inaad akhrisid, kadibna uusan ogaanin qofka kuu soo diray inaad akhrisay iyo in kale. tusaale ahaan hadda fariimaha aan diray oo ah wacalaykum salaam qofkii aan u diray wuu akhriyay, waxaa ku fahmaya calaamada buluugda ee labada tig blue ayay noqonaysaa. halka afartan fariin kale oo dambe uusan weli akrin laakiin ay gaartay fariintii. daba sidee loo qarin karaa? hadda waxaan sameynayaa in aan ka jawaabo, in aan fariin u diro whatsappka kale. fariintii ayaa iisoo dhacday, waan furay, waan akhriyey. haddaba qofka fariintan iisoo diray wuu ogaan karaa inaan akhriyay iyo in kale, waayo hadda waxna kama bedeleen. hadda haddii aan ku laabano whatsappka kale aan kasoo diray, waxaan arkaynaa la ogaaday inaan akhriyay fariintan iyo in kale. saa u jeedid hadda fariintii tigta buluuga ayay saarantay oo micnihiisaan la akhriyey. haddaba si aan u qoriyo arrinkaa sameynayaa 3dan dhibcood ayaa taabanaysaa, settings ayaa kasii taabanaysaa, accounts ayaa kasii taabanaysaa, privacy ayaa kasii taabanaysaa. halkaan ay ku qorantaha read receipts ayaad
off leedahay. Markaad off dhahdid fariimaha laguu soo diray adigoo furtay oo daawatay, qofka kuu soo diray awood uma laha inuu ogaado in aad fariintan akhrisay iyo in kale, laakiin keliya wuxuu ogaanaya in fariintan ay ku soo gaartay. tusaale ahaan hadda fariin labaad ayaan ku soo celinayaa, aan isku soo dirayaa. fariin ayaan isku soo diray, fariintii waa iisoo dhacday, waad aragtaa waan furay. hadda fariintii waan furay, waan akhriyey, asna awood uma laha inuu ogaado fariintan inaan akhriyay iyo in kale. keliya oo awoodi karaa inuu ogaado fariintan inay delivery ama isoo gaartay bis uu ogaan karaa, laakiin awood uma laha inuu ogaado inaan fariintan akhriyay iyo in kale. saa ujeedidba tigta buluga ah sida kan hore ma saarna, waxaa saaran tigta cagaarka ah. whatsappka isticmaalayo ayaa wuxuu leeyahay calaamada buluga ah, wicneedu waxay tahay in qofkan uu akhriyey fariintan. jeega waxaa noo saaran tigta cagaarka oo micneedu tahay qofkan weli fariintaada muusan akrin, laakiin way ay gaartay. anigani fariintii sidoo kale whatsappkan kale haddaan fiirino, fariintii waan akhriyey oo waa kana waa ujeedaa, waan furay fariintii waan akhriyey. halka kale halka whatsappkan kale uu sheegayo inaan akhrinin fariintii weli, laakiin ay soo gaartay. haddaba waxaan raacinayaa sidoo kale adna ma ogaan kartid dadka fariintaada inay akhriyaan iyo in kale. tusaale ahaan fariin ayaan dirayaa, adna ma ogaan kartid, adna diray fariintan waa diray. saa ujeedid delivery waaye. whatsappkii kale ayaan ku laabanayaa, fariintii ayaan soo fiirinaya, waan soo akhrinayaa, waan akhriyey, weliba waan uu soo jawaabayaa. haddaba whatsappkan kale ee aan kasoo diray ayaan ku laabanayaa si aan u ogaado in uu akhriyey iyo in kale. haddaba waxaa ujeedaa in ay saaran tahay labadii tig, aysan weli naqan tigta buluuga, labadii tig ee buluuga ah, sababtoo ah qofkan ma uusan akrin ayaa laga wadaa fariintan, laakiin saa ujeedid waan akhriyey, xitaa waan usoo jawaabay. haddaba haddii aad adna akhrisoomi doonaan, waxaa isku samaysid macnaha waxaad dadka kale ka akhrisatid, ayagani sidoo kale waa kaa akhrisoomi doonaan. farsamada ziyaad waxay tahay xilliga saxda ee fariinteeda qofkan uu akhriyey iyo xilliga ay gaartay inaa ogaado. kamid a fariimaha aad rabtid inuu akhriyey qofkan xilliga uu akhriyey iyo xilligii ay gaartay inaa ogaatid, fariintaas ayaad riixaysaa. markaad fariintii riixdid ahlad gareysid, waxaa kusoo baxay dhowr optionkan ayaa dooranaysaa. waxaad aragtaa qofkan fariinta waxay gaartay 15 daqiiqo ka hor, wuxuuna fariintaada akhriyey. fadlan haddii aad ku cusub tahay channelkiina subscribe saar, videogan haddii uu ka caawiyey like, notificationka furo si muuqaalada dambe aad u aragtid. sidaa iyo nabadgelyo.